iga fiirsateen bay taa website-yada iyo adduunka saan idinkaga qosliyo marka haddaan hadli lahaana kaamarooyin badan baa igu soo jeeda marka ma aqaansaan u hadlo marka heeskii baan ku dhufanayaa ilaa hadda iskama hadli kara kaamarooyinku waa gudboobayaan aniguna bilaa kaamara inaa idinka qosqosliyaan rabay qoladan horta gabooyaha iyo tumaalada iyo ibraha la leeyahay Soomaali weyn waxa ku dhacay horta nafsigoodii baa ku dhacay habeen walba oo waaweyn iyo yar yar bay noqdeen moogta qolooyinka saddexda qolo oo waaweyn waxa weeye waa dadka xabadka iska garaaca markii ay habeen walba markii anagu ay islaayaan oo ay iska dilaan 5,000 oo qof inta yar yarka oo dhan xaflad bay hoosta ka dhigtaan meeqay iska dileen marka oo yuwaana dhana ma garata marka waxa weeye annaga nafsigayga baa idin hayo inaad ducaysatiin baa loo baahan yahay dad walaalihiin aan nahay meel baan idin la degnaa waxa dhacday in la yiri war idinku waaweyn baad kuwi karana soo raac adres ilaahay ma dhihin dadkan wadanka ilaahay baa idin kula sameeyay wadanka Soomaaliya ilaahay dadka ku wada beeray wadankay wax ku leeyihiin nin walba gobol yar intuu meel u goostay diiraana iskale ilaahay ma oranin kuwi kalena waa soo raac adres nafsigaas idin hayo horta hore taas iska daaya waxa way anaga gaalkacyan ku noolaan jirnay waa ogeydeen reer bootaan taajiriinta ugu waaweyn bay ahaayeen dadba boqortooyadii ayaa soo dhaweysay xukunka wax ka haysanay daartii ugu horeysay gaalkacyan ugu ciise bootaan baan dhistay oo fooqeeyay marka dad fiican baa la noolaan jirnay sidaas oo kale dadka waa inaad wax soortaan kuntay weeye marka waxa weeye waa run baa أنا أقول لك أمبين هذا الجواز أمبين بقى. ما سمعت هذا لو قرص. marka waxa way nafsi badan baa idin haya dadka walaalihiin soo dhaweeya shabka iska garaacisin iska joojiya waa weyn baan iska joojiya Allah weyn haddana waxa rabaa Cabdiwali wiilkayga caawayto hees aan u qaaday nin kasta oo madax baan u qaaday boqorkii daarooda yaad dhow baan u qaaday madaxweynaha Soomaaliya waa u qaaday haddana waxa rabaa Cabdiwali inaan u qaado waxa weeyana waa dardaaran waa ninka madaxda ah waxa laga doonayo Cabdiwali oo inaad waxaas fishid baa laga doonayaa buuq iyo rabshad ma fiicna ninkii dhulka dajiyay uu baa atoora noqonaya marka dambe laakiin ninkii dagaal abuura isagoo baa dagaal ku dambeynaya ku soo dhawaada heestii aan ugu talagalay nin kasta oo madaxa waxa laga doonayo ina ilaahay waxaan ka rajeynayaa wax ku qaadatid Cabdiwali waxaa loo doortay madax cusub madaxdaas cusub oo loo doortayna waxaa horyaala hogaaminaya Dr. Cabdi Maxamed Cali Gaas oo loo doortay madaxweyne injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camil oo madaxweyne loo doortay iyo gudoomiyaha baarlamaanka Siciid Xasan Shire waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan waxaan ilaahay uga baryaynaa xilkaas culus ee loo dhiibay inuu u fududeeyo madaxdii hore ee waddanka soo maamuleysay ee hogaaminayay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole General Xasan Cali Shire iyo Maxamed Xabeyn ama xilligii doorashada waxay ballan qaadeen waxyaabo badan inay ka fulinayaan ama ay horumar kasta haddii ay noqon lahayd dhaqaalaha noqon lahayd haddii horumarinta noqon lahayd inay wax ka qabanayaan Puntland way ku soo korinayaan isbeddelku uusan noqon doonin keliya madaxda u sareysa oo isbedesha keliya waxaan ayaga ku gubaaminaynaa ama aan xasuusinaynaa ballanqaadkii ay u sameeyeen bulshooyinka reer Puntland iyo deegaanadii ay booqanayeen baahiyaha ka jira ay ku soo arkeen
intii loo sheegayba inay sidii ay uga ballan qaadeen mujtamacaas inay hawshooda u gutaan oo ay waajibaadkaas iyo mas-uuliyaddaas dowladda loo saaray sida ugu habboon ay uga soo dhalaalaan baan ayaga ku go'aaminaynaa oo ay waajibaadkaas iyo mas-uuliyaddaas dowladda loo saaray sida ugu habboon ay uga soo dhalaalaan baan ayaga ku go'aaminaynaa ilaahayna sida aanu rabku sheegay marka horena waa uga baryaynaa inuu xilkaas ay qaadeen aanu u fududeeyo si waajibaadkaas ama mas-uuliyaddaas culus ee loo doortay madaxda ay u hirgasho waxaa laga maarmaan ah in marka ugu horreysa madaxweynaha xukuumadda uu soo dhisi doono uu ku saleeyo ama uu kusoo doorto shakhsiyaadka xilka qaban doona aqoontooda kartigooda waayo-aragnimadooda taas markii la helo ayna la timaado dowladdaasi qorshe cad iyo siyaasad iswaafaqsan oo hal ujeeda leh markaas way ka gurgaari karaan baahiyaha jira ama way ka jawaabi karayaan taasna waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inuu madaxweynuhu uu qaadan doono talooyinkaas ay bulshadu dhammaanteed ay u jeedinayso waxaan kaloo ka codsanaynaa madaxweynaha dr cabdulaahi maxamed cali gaas ballanqaadkiisii ahaa in uu dowladda uu soo dhisi doono ay noqon doonto mid u ekaata ama ka turjumaysa shacabka reer puntland inay noqoto oo ay beelaha waxaa jira reer puntland oo 15 sano ee puntland ay jirsatay aan xerar ka qaban ama maamulka aan ku jirin waxaan ku codsanaynaa inuu maamulkiisa iyo dowladda uu soo dhisi doono ay beelahaas ay ka dhex muuqdaan oo xerar u dhiibo la doortay cabdiweli oo ah madaxweynihii golaha shacbiga oo ay hogaaminayaan istimada iyo madax dhaqameedyada waanagahay dhibaatada la soo maray aan ognahay in laga soo saaray meelo adag in ilaahay ka dhigo mid adkaada mid waara mid horu socda cabdiweli runtii waxaan jeclahay inaan fariin diro fariintaas oo ah cabdiweli runtii waxay fariintaydu tahay aan dariya cabdiweli in annagu haddaan nahay jaaliyadda qurba-joogga Soomaaliyeed oo meesha beelaha jiro beelaha waxa la yiraahdaa 4.5 in koo laga guuray waxa la yiraahdaa 5 beelood inaan annagu haddaan reer u Norway-nahay jaaliyadda qurba-joogga inay tahay beeshii lixaad marka waxaan leenahay qurba-joogga reer Somaliland waa in wasiirada lagu soo daraa haddii lagu soo dari waayana waxba ka socon maayo bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركون آدي إلهي لما هذا وحنو ما تعلنا يا جريدة PDF وحفلتنا نقوم ارتقاطي أما سؤال مشي ورنتي حفلتنا آدي أدو قيمة بلا وموجلسة يسبدل كذا عبودنا اللي سودوية هي ورا يكسوديان. وعن جريدة محقبة كذا عندما باشر asagoo ku mahadsan yahay isagoo wakiil naga ah inuu maaragtay guddoonsiiyo shahaado wayna mutaystay runtii waana aad baan uga mahadnay haddaan u soo gudbo mawduuca aan halkan isugu nimid oo ah inaanu soo dhaweyno madaxda ama isbeddelka ka dhacay puntland ugu horreeya madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiin cabdullaahi xaaji cumar cali guddoomiyaha golaha wakiilada saciid xasan shire oo runtii saddex qof oo ku cusub aan dhihi lahaa cusub isbeddelka cusub saddexdooda ku bedelay waxaan kaloo hambalyad buuxda u dirayaa dowladda cusub oo uu hogaaminayo professor cabdiweli maxamed cali gaas waxaan leeyahay cabdiweli soo dhawow ku soo dhawow maamul goboleedka puntland waxaanu kuu rajaynayaa inaad noqoto xabsoore degooye iyo degan puntland 66 xildhibaan ayaa la doortay salaadiin ayaa dooratay suldaano ayaa soo gudbiyeen dadkii dooranayay ama soo xulayay miyay ku fakari waayeen war beeldan oo beesha majeerteen marka laga reebo ugu badan puntland deegaankeeda ayaa ka maqan xildhibaanadeeda ha lagu soo daro way isku afgarteen waa la magac taasna hore u taalay dhowr iyo 20 sanadood maamul goboleedka puntland uu jiray waxaan ka xumahay in hal xildhibaan aan ka weyno laakiin waxaan u mahadcelinayaa dadkii badnaa ay halkan fadhiyay hortay hadlay oo ii hadlay marka ma ogaanin inaan hadlo dad badan baa ii hadlay walow hal suldaan oo wax yar oo qaldan uu ku hadlay wuxuu yidhi beelaha gabooye tumaalada midgaha
midkaan waa caawiyaan midkaan qabiil maaha markii in adeerka oo majeerteen ama qabiil kale uu wuxuu sameeyaa warnaga tag midkaan iyo yaadada midkaan horta maaha qabiil waa ma dhibaan weeye qabiilka haddii aan u soco suldaanka midkaan waxaa ugu hirxun iyo ninkii jannada laga waaya aqabo yaa midkaan ko fariinta aan mudane cabdiweli maxamed cali gaas aan ku celinaya waxay tahay waana laga tiray xildhibaanadii waana lagu gardarooday gardaradaas in adiga iyo dowladdaada naga dulqaadaan dastuurka waa wax gacanta lagu dejiyey waad ku noqon kartaan salaadiinta puntland xagga xildhibaanada ubax waxay tiri 2 xildhibaan keliya laga siiyey waxaan dhegaysanaya VOA nin cabaadaya oo le salaadiintayada 9 xildhibaan anagoo ay gudbisay 5 keliya laga qaatay warbal dad baa waxba haysan 5 buu ka dacwoonayaa marka haddii lagu noqon karo golaha xildhibaanadana bal in dib loogu noqdo oo xildhibaan walba meesha fadhiyo wuxuu u fadhiyaa qabiilkiisu u fadhiyaa bal qabiilkan xildhibaanka uu doodi lahaa bal in lagu soo daro baarlamaanka weliba waxaan rajaynayaa in gabdhaha mutacalimiinta mid ka mid ay noqoto oo aan nimanka iyaga waxba qaban weyneyn bal dumarka iyaga mutacalimiinta ah oo qabiiliga ah bal in hal macnaha naloogu soo daro golaha xildhibaanada si ay golaha xildhibaanada u bataan dumarka ku jiro mideeda kale cabdiweli gaas markii aan hooslo ku kulannay ballanqaadyo badan oo intiinaas aa ka marqaati tihiin badankiina aad fadhiseen ayaa jirtay oo ahayd in dadkan laga tirada badan yahay ma oranayo oo cidba tirisamale siduu u sheegayay xildhibaan cabdirasaaq lahayb sooco cid ay sooci karta malihii ma jirto cabdiraxmaan colaad maxamed aa la yidhahdaa haybteeda cid leexin karta ma jirto waa beelaha dulman weeyaan waxa aniga aan ku magacaabo beelahan dulman cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu yiri waxay u baahan yihiin in laga kabo 2 meelood dhinaca waxbarashada iyo dhinaca dhaqaalaha waa in loo dhiibaabuyo waa in koonta khaas la siiyaabuyo shirkiisa Oslo dadkan waa in koonta khaas la siiyaabuyo oo 20% noqoto loo dhiibo ilaha dhaqaalaha hadda cabdiweli maxamed cali gaas waxaan ka codsanaynaa bal in wasiirka macallinta bedroolka uu noo dalbo meel ka dhaqaalo oo lagu xisaabtamay ma jirto waxaan rabnaa wasaaradda bedroolka iyo macdanta si aan ila dhaqaalo oo dadkan aanu tacliintooda kor ugu soo qaadno oo aan maxay ahayd kartidooda kor ugu soo qaadno si aan bal dhaqaalo uga helno marka cabdiweli maxamed cali gaas waxaan u rajaynayaa asaga iyo dowladda uu hogaaminayo guul ilaahay ilinkiisna cabdiweli hadalkii uu yiri oo ahaa wax kale idinkagama baahan waxaa idinkaga baahanaha duco keliya waanu u ducaynay waxaanu u sii ducaynaynaa markii ay ducadiisan aqbal noqonaysaa markii uu xaqdarrada dadkan lagu hayay وكقاضي وحقه السيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا الصوماليين جالية وحن سلام يا ريفضل. سيدا شرفت له أي نورس عسومي حفلة العاوة وقليلتها بروفيسور عبدولي محمد علي قاس إيو سيدا عدالة كجرتي ودكتور فرولي وقتلي ماملكي وهرين سوهي walaalayaal anigoo ah magacaygu injineer Mahadami Maxmuud waxaan ahay madaxweynaha maamul goboleedka kumeelgaarka maamul goboleedka Sayid Cali State of Soomaaliya waxaan walaalayaal salaam iyo bogaadin iyo hambalyo iga sigaa jaaliyada Sayid Cali State of Soomaaliya ee gobolada waqooyi gaar ahaan galbeedka ay xaruntaydu tahay Sayid qorasho horteed hay nicin bay Soomaali tahay waxaa la yidhi walaal hadalkiisi uu ka tegay iyo xeer doqon uu furay intuba hamba male maamaa Soomaaliyeed maslaatira hadal dee waa la hadlay waa la ammaanay madaxda Puntland horta waxaan rabaa inaan 2 mirir oo taariikh ka hadlo
waxaan haddaan anagu nahnay jaaliyadda saylac lagu haystay Soomaaliya markhaati u nahay fi aakhirada inay garowe waan ahayd cadaaladda koowaad shirkii ka dhacay garowe waxaan haddana aan cadaaladda labaad aan ku tilmaamnaa shirkii garowe two waxaad aragtaan walaalayaal faroole wuxuu soo qabtay ninka libantiisaa la siiyaa qofku cadaali hadduu yahay wuxuu wanaag soo qabtay waa la sheegaa daliilkuna ma baahno waayo daliilku waxay keentaa constructive mar dambe in dalka la dhiso oo wixii qaldan la hagaajiyo marka walaalayaal cabdiweli anigu si gaar ah ula kulmay maamulka markaan asaasnay saylac lagu haystay gaar ahaan hotelka continental bar halkan Oslo waxaan u arkaa nin waqtiga xaadirka ah jaaliyadda Puntland ay u baahnayeen nin xilkiisa gudan kara nin aqoon iyo karti u leh waayo qofka aad midib ku badan weydid ma baranaysid weliga waxaan anagu aragnay intuu xilka Soomaaliya soo hayay markuu ra'iisul wasaare ahaa inuu amniga gobolka Banaadir uu sugay farmaajo xamar buu sugay isagu gobolka dhan buu sugay waa in la muujiyaa cabdiweli ay dunida caalamka ay soo jiiteen markii ay ceelasha qolaalka petroolka ay qodayeen annaguna dhulkaygu khayraadkaas oo kale waa leeyahay saylac ceelgaal heemaal iyo tuulooyin kale oo petroolku uu hoos maahay baa jira inaan la shaqaynaa rabnaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa idinku salaamayaa marweyn iyo mudanayaal dhalinyaro iyo waayeelba salaanta islaamka baa idinku salaamaya horta iga guddooma salaanka bacdi waxaan ahaa dadkii isbeddeldoonka macnihiisu ma ahayn in dad lagu cayrinayay ee wuxuu ahaa in weji cusub loo keeno dadka Puntland ku nool wejigii cusbaana maanta waa yimid oo riyada iyadii ilaahay waa nagu guuleeyey dadka ama way helaan waxay doonayaan ama way waayaan maasha Allah ilaahay maanta waa noo keenay waana ku faraxsanahay waxaan leenahay horta madaxweynihii horeeto oo ka tegay Puntland wuxuu ahaa dhal sheekh dhalay samirkiisa iimaankiisa Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh marka wuxuu uga kaaftoomay hal xil oo kaliya hal cod oo kaliya oo looga marguulaystay ayuu maadaama nin wadaad dhalay ahaa ilmo wadaad ka fiican ilmaha kaleeto ayuu wuxuu ka yiri waa uga kaaftoomay markaa u taagnaa xilka maadaama xilka ninkii u taagnaa uga kaaftoomay hadda wuxuu ahaa midkii annagu aan markaa u ololeynay oo aan rabnay inaan wejigaas cusub uu soo baxo uu noqday nasiibkayga ilaahay waa nagu guuleeyey waxaana leenahay dadka ugu nasiib badnaa baanu ahayd maadaama aanu inta waqti siiba aniga khadiija ahaan because waxa weeye waxaan ahaa maalintii ugu horreysay oo aan siyaasad galay bay ahayd maadaama dadka waddanka Puntland u dhashay oo ii siman yahay Puntland waqti horeeto aan hore u tegin ee waqti ugu horreysay maskaxdayda ay ku soo dhacday inaan raadiyo wax la yiraahdo isbeddeldoon ayuu ahaa marka waxaan leeyahay hambaliyo sidii wanaagsanayd ee maanta ay u dhacday doorashada Puntland waa ku mahadsan yihiin dadkii kii ka tegay iyo kii markiiba qaatay iyo nimankii wadaadadii dadkii odayaasha ahaa iyo dadkii ogaashii iyo caqli dadkii ahaa ulmaadiin iyo kuwa caqliga lahaa intaba waan ku guulaysanay waxaana leenahay ilaahow maanta nagu guulaysii wixii aanu qaadnay xil maanta uu ku mudan yahay ninka la yidhaha cabdiweli xil nin qaaday cabdiweli waxaan ku leenahay eed qaaday nin eed qaaday soomaalidoo dhan hadda maanta kaama rabaan inaad xoolo siisid inaad lacag siisid inaad madax siisid laakiin annaga iyo dumarka siiba dumarka iyo qolada la yidhaahdo gabooyada oo waddanka u dhashay Puntland intaa waxaan kaa rabnaa xil baan kaa rabnaa xilkii sharcan kugu dooranay waa inaad nagu siisaa 4.5 iyo waxaan maqli jiray laakiin Puntland kama socoto waxaas Puntland waxaa ka socota doorasho xaq ahayd baa ka socotay doorashada xaq ahayd ka socotay waa in annaga dumarka ah iyo dadka kaleeto intaba aad siisaa waxaan xaq u lahayn sidaa walba la sheegay halkan waa uu hambalyo madaxda cusub oo loo doortay Puntland iyo madaxdii hore oo shaqada haysay awal oo isbedeshay hadalka markaan soo koobo waddanka qodob ka kooban yahay kol sida hadda la socotaan
waxaan sharaf weyn ayaa ama se aad aan u hambalyeelayaa madaxa cusub ee Puntland waqtiga loo doortay Professor Cabdiweli Maxamed Gaas. sidoo kale waxaan hambalyo iyagana u dirayaa madaxa baarlamaanka Siciid Xasan Shire. waxaan kaloo hambalyo u dirayaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiim Cabdilaahi Cumar Camil ku magaceeda. intaa markii aan intaa ku dhaafo waxaa fiican dadka loo duceeyo marka hore hadduu hawl qabanayo hawl haddii loo xilsaaro hawshaasi ilaahay u fudeeyo. halkan waxaan isku soo gabagabayn doonaa in loo duceeyo. dhammaan waa salaamayaa waqti sharafta ka soo qayb gashay xafladda. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii kuma talagelin inaan halkaan istaago oo ka khudbadeeyo saaxiibkayga waa igu gaaday, laakiin wixii ilaahay garansiiya ayaan ka dhihi doonaa insha allah biidnillahi kariim. sidii dadkii iga horreeyay sheegeenba maanta waxaynu iskugu nimi waa taageerada madaxda Puntland noocyadeeda kala duwan iyo sagootinta madaxdii hore. saaxiibadeedii iga horreeyay ayaa la qabaa madaxda cusub oo Professor Gaas madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiim, gudoomiyaha baarlamaanka Siciid, saaxiibadeedii iga horreeyay dhambaarkoodii baan ana taageerayaa. waa soo dhaweynaynaa, ilaahayna waxaanu ka baryaynaa wixii aanu ka sugaynay oo ahaa waxqabad in ilaahay maaragtay u fududeeyo, innaguna aynu noqonno haddaynu nahay reer Puntland iyo haddaan nahay Soomaalida kale oo walaalaheena oo maanta inala jooga iyaga noocyadooda kala duwan, dadka aqoon-yahanka, nabadoonnada, isimada, gabdhaha, dadka Soomaalida samaha jecel intuba inay noo qabtaan wixii aynu ka filaynay. waxa kale oo muhiima inaynu husno dowladdii ay bedeleen dowladdan cusub. runtii de qof walba wuxuu qabto taariikhda iyo dadku ku shaqaynaya ayaa beri maaragtay bay meel ugu qoran tahay. aad baan dowladdii horena maaragtay u sagootinaynaa. waxaan leenahay waa mahadsantiin. marka hore bismillahi raxmaan raxiim. dhammaantiin waan salaamayaa marti sharafka meesha jooga, odayaasha dhaqanka, duqowda, dhalinyarta, guddiga BDF-ta jaaliyadda Oslo Norway. dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xiga bacda salaam caawa haddii sidii laynoo sheegay waxaa weeye gudoomiyaha rag badan baa joogayo waxaa laga yaabaa guddiga iyagu waa ballaaraya iyaguna in loo mahadceliyana waxa way mudan yihiin. muhiimadda kaliya oo aynu meeshan caawa iskugu nimi waxaa weeye sidii aynu u taageeri lahayn dowladda cusub iyo madaxdii hore oo hore iyaguna xilka wahaystay iyagana inaan dhahno mahadsantiin waxaa soo qabateen iyagana saagootan u dirno. wixii talo iyo aynu hayni tusaalana aynu ku taageerno dhammaan madaxda cusub ee hadda loo dhiibay hoggaanka Puntland. intaas kadib marka hore waxaan kan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdixakiim Camil, gudoomiyaha baarlamaanka Siciid Xasan Shire iyo dhammaan raggii iyaguna doorashada aad iyo aad waxa way u qabanqaabiyey guddigii doorashada, taliyaha ciidanka Siciid Daare iyo raggii la shaqeynayay dhammaantood. waxaa kaloo caawaad aniga farxad ii gelinaysa waxa weeye in Puntland ay yeelato hoggaan cusub. waxaan kaloo ku faraxsanahay
dowladdii hore shanta sano soo haysay wixii ay qabatay in qolada cusub ee hadda xilka loo dhiibay ay halkii kasii ambiqaadaan wixii mashaariicee lagu wareejiyey iyaguna waxaan kula dardaarmi lahaa inay bartoodii ay kasii wadaan anu hadalka ku dheeraan maayo waxaan malanayaa intiina badan way garanaysaan dhammaanteen waxaynu meesha waa hambalayno dowladda cusub iyo dhammaanayno biigtala aynu u dirayno dowladda cusub wax badan baynu ballan qaaday oo ku saabsan puntland in laga bedelo waxaan oran lahaa wixii ballan aa qaadeen aqbal horta ilaahay baa iskale inaan u duceyno ilaahay hayna aqbalo ballantaa u qaadeen bismillaahi raxmaani raxiim mudan ayaa la qaran weyn dhammaan dadka sharafta leh halka ka soo qayb galay waxaan marka hore ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaan leeyahay reer puntland hambaliyo 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 puntland waxaa iska bedelay maamulkii sare laakiin shacibka isma bedelin insha allah puntland waxaa ka dhacday doorasho caalamka meel ay ka dhacday aysan jirin waxaa ka dhacday doorasho raggii lahaa dimuqraadi baan nahay aysan weligood aysan samayn waxaa ka dhacday doorasho qofkii jooga ama arkayay runtii uu qiiroonayo waxaan markaas u ambaleynayaa horta waaran dowladda cusub ee hogaaminayo professor cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisa cabdixakiin cabdullaahi cumar camey waxaan leeyahay waa hambaliyo waxaanse rabaa halka inaan sidoo kale aan fariin u diro madaxweynihii hore ee puntland waxaan leeyahay taariikhda wuxuu ka galay baal dahaba afrikana kama dhicin madaxweyne 5 sano waddanka haystay in la yiri hal cod ba lagaaga qaaday kabacdina halkii cod intuu ku qanco inuu yidhaahdo 32 helay 33 baa heshay raalli baan ka ah caalamka kama dhicin haddaan dib u xusuusano dowladda lagu dhegana dariskeenna ee kenya doorashadii markay ka dhacday 100,000 oo qof baa laga sameeyey waana diideen doorashadii kumana qanacsan bay yiraahdeen dagaalkii ka dhacayna kumayaal kun oo qof baa ku nifwaayay laakiin tan waxay keentay maanta in hal cod intuu soo istaago inuu gacanta saaro yiraahdo waa laga badiyey taasi waxay ku tusinaysaa muwaadinimadiisa madaxweynihii hore waana ugu hambalyeelayaa arrintaas oo ku dhaqaaqay runtii حسن سعيد حسن راستا SNTV Norway